madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo ka tirsan gurihiisa wasiirada iyo agaasimaha guud ee maalgashiga Soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay kadinka gobolka Gabiley waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley. wafdigan ayaa ugu horreyn xadhiga ka jaray wadda 1 kiiloomitir ah oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Arabsiyo. sidoo kale wafdigan oo socdaalkoodii waqti yar kadib soo gaaray magaalada Gabiley waxaanay halkaasi xadhiga kaga jareen wadda afarhaad ah oo ay dawladda hoose ee degmada Gabiley ka hirgelisay magaaladaasi. waxaana ugu horreyn ba halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu jecel lahay inaad xadhiga nooga jarto sidaad horeba uga soo jartay laba wado oo labaduba ay yihiin mashaariicihii 2018 ay gobolka degmooyinkiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa ay ka hirgelisay dawladda hoose degmada Gabiley wadda 1 kiiloomitir ah oo markii ugu horeysay taariikhda Arabsigaan u sameynay adiguna aad nasiib u heshay inaad noqoto madaxweynihii horeeyay ee Arabsiga degmada xiisaadka xadhiga uga jara iyo halkan aynu joogno oo ah wadadii labaad ee afarhaad ee magaalada Gabiley dhexdeeda aanu ka sameeyno iyadoo aanu ka talagalnay kor u qaado bilicda iyo isu socodka magaalada ku soo dhawo mudane madaxweyne oo maanta runtii laba wado oo halbowlo ah u ah degmada Arabsiyo iyo degmada Gabiley oo ah la dhigay roogii asfalka ahaa waa horumarka ay dawladda hoose ay nagala qayb qaadatay ka mid tahay mashaariic kale oo fara badan oo ka socda gobolka iyagana waa jiraan oo runtii dawladda dhexeeyada loo ka hirgelinayso. marka mudane madaxweyne anagoo ka faa'iideysanayna safarkaagan aad ku socoto wajaale waxaanu kaaga mahad celinaa kaagana bogaadinaynaa inaad na siisay waqti adigoo degdegsan. runtii waxaanu leenahay mudane madaxweyne noo baarig oo nooga jar xadhiga labada wadaba. waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.